Itoobiyada aan badda lahayn ayaa waxay shaaca ka qaaday in ay samaysatay cutubyo cusub oo ciidanka badda ah. Waxaanay tilmaantay in ay ciidamadaasi ka howlgali doonaan cirifka xeebaha Soomaaliya ilaa iyo dekedda Musawac oo dalka Eritrea ku taala. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku dhawaaqay samaynta cutubyo ciidan oo dhinaca badda ah oo gaar ah, kuwaasi oo loo xil saaray ilaalinta xeebaha iyo la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeedda Geeska Afrika. xilli uu ka hadlayay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 65 ee ka soo wareegtay ciidamada howlgallada gaarka ah ee Itoobiya ayaa Abiy waxa uu sheegay in kordhinta awoodda militarigiisu aanay ahayn gardarro balse ay tahay mid lagu xoojinayo xasiloonida gobolka. tababarka militari ayaa hore ugu koobnaa dhinaca dhulka balse hadda waxa lagu soo kordhiyay ciidan fulinaya howlgallo dhinaca badda ah. Abiy sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in ballaadhin lagu sameeyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, kuwaasi oo ka qayb qaata dhinaca weerarka iyo sahaminta. waxa kale oo uu sheegay in Itoobiya ay dhisatay cutubyo gaar ah oo awood u leh inay burburiyaan saldhigyo difaac oo aad u adag iyagoo adeegsanaya diyaaradaha ismidaamiya ee loogu talagalay. arrintan haddaba waxay imaanaysaa iyadoo ay sii kordhiso xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo dalka Eritrea xilli Addis Ababa ay u qartajeexayso helitaanka marin badeed oo ay u madax bannaan yihiin. isla waqtigaasi waxaa jira khilaaf kale oo ka dhex taagan dowladda federaalka iyo jabhadda xoreynta shacabka ee Tigray iyadoo halkaasi laga soo sheegayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku wajahan gobolkaasi. ururka xasaradaha caalamigaana waxa ay sheegayaan suurtagalnimada dagaal ka dhex qarxi kara Itoobiya, Eritrea iyo gobolka Tigray kaasi oo keeni kara khasaare aan la qiyaasi karin. Su'aasha haddaba isweydiinta mudan ayaa waxay tahay Abiy arrintani ma waxay ka tahay istiraatiijiyad mise waa bilowga isku horimaad hor leh oo ka qarxa gobolka Geeska Afrika.